fanaanad maaliyadeed oo lagu iibiyey lacag dhan $10 milyan. Marka aad maqashay lacagta sidaas u tirada badan, waxaa kuu soo dhacay ciyaaryahanada kubadda cagta oo ku caansan sida Messi, Ronaldo ama Neymar. balse arrinta sidaas way ka duwan tahay. Fanaanadan uu xirtay halyeeyga kubadda kolayga ee Michael Jordan intii lagu guda jiray ciyaartii furitaanka ee 1991 ee NBA Finals ayaa lagu iibiyey lacag dhan $10.1 milyan. Tani waa qiimihii ugu badnaa ee fanaanad isboorti lagu iibiyo intii la ogyahay taariikhda. Aqalka xaraashka ee Sotheby's waxaa leeyahay fanaanada waxay soo jiidatay farshaxaniistayaal badan iyo taageerayaasha isboortiga ee aruuriya xasuusaha. Waxay ahayd mid xasuusiyaasha xilli ciyaareedkii lagu xusay dukumiintiga Netflix ee The Dance, kaasoo oo Jordan uu ku guuleystay horyaalkii 6aad iyo kii ugu dambeeyay NBA-da. Khamiistii, shirkadda Sotheby's waxay sheegtay in fanaanadan Jordan ee Chicago Bulls uu soo jiidatay wadar ahaan 20 dalab. Madaxa Sotheby's Barham Wager ayaa sheegay in tartamayaashii doonayay inay iibsadaan fanaanadani oo qabeen inay yeeshaan taariikh ahaan natiijada rikoorkii jebinta ee maanta waxay adkeynaysaa Michael Jordan inuu yahay laacib aan muran ka taagnayn, taas oo caddeynaysa in magaciisu uu weli yahay sidii uu ahaa ku dhawaad 25 sano ka hor. Wager ayaa sidaas yiri, fanaanada ayaa ka sare martay rikoorkii hore ahaa $9.28 milyan oo lagu iibsaday fanaanadii uu xirtay xiddiga kubadda cagta Diego Maradona koobkii adduunka 1960. Waxaa sidoo kale fanaanadani lala xaraashay majallad isboorti ah oo la daabacay bishii Juun 1998, kaasoo uu boggiisa saarnaa sawirka Jordan. Jordan ayaa dad badan u arkaan inuu yahay ciyaaryahankii ku fiicnaa taariikhda kubadda kolayga. Waxaa inta badan xirfadiisa ku qaadatay naadiga Chicago Bulls. Wuxuu u noqday halyeey caalami ah oo wuxuu gacan ka geystay kor u qaadista sumcadda NBA-da adduunka oo dhan. Inkastoo Chicago Bulls laga badiyay kulankii furitaanka NBA Finals ayaa lagu ciyaaray Utah Jazz, haddana waxaa badisay 3 kulan ee xigay. Kadibna Utah Jazz ayaa ciyaarta ku xigay 2 dhibcood ka qaadatay. Ciyaartii 6aad Chicago Bulls ayaa guul u horseeday iyadoo 5.2 ilbiriqsi kaliya ka harsan tahay saacadda ayuu ciyaarta ka dhigay 87-86, waxaana xaqiijiyay horyaalkii ugu dambeeyay NBA-da. Dib u soo laabashadiisii magaciisii ayaa waxaa aad ugu farxay taageerayaasha kubadda kolayga. Jordan ayaa si lama filaan ah uga fadhiistay kubadda kolayga bishii Oktoobar ee sanadkii 1953 kadib dilkii aabihiis North Carolina. Xiddiga wuxuu ku guuleystay 7 koob oo la siiyey inuu ahaa qofkii ugu gool dhalinta badnaa, wuxuuna hogaamiyey Chicago Bulls 3 horyaal oo toos ah. Jordan oo hadda da'diisu 9 jir ayaa kabihiisii xirtay markii ugu dambeysay 2003. Talk about an athlete, what a shot. A save and a shot by MJ.